annaga waxaa naga dhaadhacday masaakiin baa iska ahayne gabadh Soomaaliyeed baa intay idin shirqoosho bay niman idin shirqooli marnaba naguma soo dhacay ayaa annaga waxaana dhacday aniga nin kale gabadh Soomaali oo reewo jeer ah yaa naga lug meersatay marka aniga nin kale oo kala casada baan guri baan kiraysan rabnay oo aan u rabnay lodge ahaan baan u rabnay teel ahaan in aan u kiraysan marka niman baa intay gurigii dukumiinti beenbeena u samaysteen ayaa waxa guriga naga iska leh dukumiinti beenbeena way samaysteen kibaandooyin waafaqsan dukumiintiga oo iyaguna feegana way soo samaysteen lawyer feegana toonkay ku samaysteen shabakadii baan naga gal shabakada marka waxa hormuud oo anaga kalsooni galiyay gabadh Soomaali ah oo say u labisantay hadaad aragto waliga aadan dhahaynba tana balaayadan ka shaqeysaba ayaa la socota marka annaga waxaa naga dhaadhacday masaakiin baa iska ahayne gabadh Soomaaliyeed baa intay idin shirqoosho bay niman idin shirqooli marnaba naguma soo dhacay bas heshiiskii waa la saxiixayaa baa la yiri lacagta soo qaada lawyer-ki toonkaana lagu ballamiyay markaan meeshii tagnay lacagtiina aan wadno ayaa la heshiis baa lahaay lacagtiina laga qaaday baa dhinacyaha laga dusay annagoo meel bannaan taageer baan isarag ami galabnimo way qorcasar gaabada waa Nairobi markaas waxaan bilownay inaan lafaha naga la fakadno war lacag iyo xoolo ma jiraan bal lafaheeya leena diline ina carrisi arban gal barnaamijka waxa ka shaqeysay oo isku xidhay gabadh Soomaali ah waa 20 sano taqriiban ka hor way ku dhowday marka gabdho Soomaaliyeed baa qayb ka ah wiilal Soomaaliyeed baa qayb ka ah barnaamijyadan shabakadahan qayb ka ah waxaan ula jeedaa marka macluumaadka idin siinaya Soomaali way hagu kalsoonaanina ilaa anagu moogtahay Soomaalina waa isaga kalsoonaanaba oo ka gabadha quruxda badan anaga isaga kalsoonida iska siinayba labiskeeda iyo quruxda Soomaali weeye iyo waxana isaga kalsoonaan marka tawaamid midda labaad weeye dadka shabakadaha ku jira ee Soomaalida ah ee aynu naqaano iyagana waa inaan qarinin oo inaan hoosta gashanin laana Soomaalinimadooda waxba inagu biirin mayso ehelnimadooduna waxba inagu biirin mayso Soomaa waa mufsidiin mujrimiina waay waxba marka ugu tari maayaan hadii laakiin hoosta aan gashano oo aan qarsanno inaga inagu soo noqoni nabigana xadiiskiisi waa kii ahaa sahih muslimka ku yaalay la'ana Allahu man awa muhdithan ruux wa fasaadinayo wax kharibay ninka hoosta gashaday oo gadaal marsaday lacnad Ilaahay ku dhaco